kulankan oo iskugu yimaadeen xubnaha kala duwan ee uu ka kooban yahay ururka dhalinyarada degmada Taleex Youth Organization ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan Tayo isla markaasna ay ku taageerayeen imaanshaha degmada Taleex madaxweyne ku-xigeenka Puntland General Cabdisamed Cali Shire ayaa maanta ka dhacay degmada Taleex kulanka oo ahaa mid ballaaran ayna ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta xubnaha kala duwan ee ururka dhalinyarada degmada Taleex ayaa wax ay ku nuuxnuusadeen kuna dheeraadeen dadyowgii ka hadlay kulankani taageerada ay u hayaan madaxweyne ku-xigeenka Puntland General Cabdisamed Cali Shire iyo waliba sidoo kale waxyaabihii uu ka qabtay degmadani Taleex intii uu ku sugnaa haddaba waa kuwan dadyowgaasi oo arrimahaas ka hadlaya madaxweyne ku-xigeenka Cabdisamed Cali Shire mahad baan u celinaynaa waxqabadka uu qabtay deegaanada oo ka mid ah waxbarashada biyaha iyo caafimaadka iyo dalalka ka maqan oo xoreyn doona anigoo Cabdiraxmaan Ismaan aadan kor hadlayo afka ururka dhalinyarada reer Taleex waxaan taageeraynaa hadaan u dhahay dhalinyarada reer Taleex waxqabadkii madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland General Cabdisamed Cali Shire Axmed oo ku yimi magaalada taariikhiga ee Taleex waxaan kala uga mahad celinaynaa madaxweyne ku-xigeenka waxqabadkii kamid ahaa arrimaha bulshada oo ka fuliyay intii joogay magaalada taariikhiga ee Taleex ayna kamid ahaayeen caafimaadka waxbarashada iyo horumarinta biyaha waxa kala madaxweynaha hadaan u dhahay dhalinyarada reer Taleex aanu ku taageersanahay si maskaxiyan iyo muruqiyanba xoreynta uu dadaalka ugu jiro halganka hadii habeena xoreynta gobolada iyo degmooyinka ka maqan bulshooyinka Puntland ay ka mid yihiin Laascaanood iyo deegaano badan oo hoos waxaan halkan ka mahad celinayaa madaxweyne ku-xigeenka Cabdisamed Cali Shire waxqabadka uu degmada ka qabtay sida biyaha sida waxbarashada sida caafimaadka aad baan uga mahad celinayaa boqolkiiba waxaan ku taageerayaa hadaan nahay ururka dhulbahante oo dhalinyarada inuu gobolada maqan ee cadawgu haysto in uu difaaco oo noo soo xoreeyo cadawgu haysto sida darteed ayaan ugu soo jeedinayaa wax alaale wixii dhulbahantaa inay dalkooda xoog iyo cudud iyo aragtiba ka siiyaan cudud ka siiyaan madaxweynaha ku caawiyaan oo ay soo xoreeyaan dalka madaxweynuhu waa mahadsan yahay boqolkiiba waxaan ahay iskoolka secondary school isagoo iskoolada wax ka qabto General Cabdisamed Cali Shire كل ما هسيا مدحوين جنرال cabdisamed Cali Shire ka qabtay degmada Taleex sida biyagelinta waxbarashada iskoolka isagoo wax ka qaban doona dalalka haysta cadawga salaamaya baa saxaafada waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland General Cabdisamed Cali Shire imaatika General Cabdisamed Cali Shire imaatika uu noogu yimid Taleex anagoo ku hadlayna afka ururka dhalinyarada soo dhaweynaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland General Cabdisamed Cali Shire dhammaan waa salaamayna bulshada reer Taleex waxaan ku soo dhaweynaa waxqabadka uu noo qabtay xagga caafimaadka waxbarashada biyaha waxaan ka codsanaynaa inuu soo celiyo gobolada naga maqan iyo degmooyinka ee ku jira gacanta cadawga shisheeyaha Cabdiyo waxaan la isku hayn oo la wada hubaa Cabdiyo waxaan la isku hayn oo la wada hubaa inaarasado wasaga u tahay hormuud inaarasado wasaga u tahay hormuud inuu halaabayo wiilkii ku daba higsada ayuu عبد الرحمن جامع حشي عبد الرحمن وطني صومسة TV تلاح